asalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan maanta sal samayn doonaa muuqaalkan xayeysiinta aad ugu jeedaan waafi. Muuqaalkan waxaan ugu talagalay shirkadda waafi xayeysiin ahaan ugu sameeya. Marka waa mid aniga ii qaas ah maahan shirkadda inta ugu sameeyay. Marka waxaan ugu sameeyay applicationkan la yiraahdo Elite Motion. dad muuqaalkan kees waxaan rajeynayaa inaad isla daawano bilow ilaa dhamaad step by step wadooyinka aan maray. Sidoo kale ilaaban wax walba aan isticmaalayo ama aan ku isticmaalayo waxaan soo dhigi doonaa Telegramka. Haddii aad weli nagu soo biirin sidoo kale Telegramka nagu soo biir. ugu horeyn Elite Motion soo furanayaa. Haduusan application ku furan waa inaad soo degsataa taleefanka ku soo shubataa. application wuxuu ka caawinaa waxyaabo badan haddii ay noqoto motionska, introska, waxyaabo badan lagu sameeyaa. Marka calaamada balaska ayaan ku dhufanayaa. kadibna waxaan dooranayaa marka projectiga magacaan ku sameynayaa. marka waxaan leeyahay waafi animation. marka kadib sidoo kale sequencega aan ku edit gareynaa haddii ay tahay TikTok, haddii ay tahay Twitter, Instagram, waxyaabahaas oo dhan. marka haddii YouTube aan rabo inaan ku edit gareeyo, YouTube-kuna waa 16:9. marka waan isla garanin karnaa. sidoo kale halkan waxaan ka leeyahay white, halkan 30 fps 1080 halkan ku aato. waxba ka bedelin qaybtan kaliya. qaybtan waxa laga yaabaa in black ka tahay, black markaan white ka dhigo. sidoo kale marka cancel iska waxaan marka waxaa isla imaaday time frame-ka ama interface-ka ugu horeeya Elite Motion-ka marka wax lagu edit gareynaa. marka waxaan leeyahay calaamada plus-ka si aan soo geliyo sawir. sawir baan rabaa inaan soo geliyo. calaamada plus-ka ayaan ku dhuftid shapes iyo waxyaabaan ayuu ku keenayaa. marabna hadda kadib waxaan soo dooranaynaa sawirka. haddii aan soo doorano waa ka midkan oo kale aan u baahanahay. mobileka wajahdiisa koowaad. sidoo kale sawirka xitaa hadda marka labadaas aan soo geliyay applicationka sawirkiisa iyo mobileka interface-kiisa. marka labadaas nooc aan soo geliyay. sidoo kale waxaan soo darayaa calaamada plus-ka aan leeyahay. waxaan soo daranayaa rectangle marka ama shapes ku soo daranayaa. shapes ugu soo dirtid calaamada kaliya plus-ka ee dhaysa sidii sawirka aad soo gelisay oo kale iyada kugu soo baxayso marka meesha ugu horeyso. marka waxaad tagaysaa calaamada rectangle-ka ku sawiran tahay. waxaan rabaa inaan ku buuxiyo marka aan ku dhamaystiro shape-ka. si aad shape-ka ugu buuxisay marka aad shape-ka uu ku dooray edit shape alada kadib qaybtan ku keenay asaaska aad ka cabiraysid ama shape-kiisa kala control-isid. shape-ku waa inuu la ekaadaa marka sawirka maahan waxaan rabaa inaan la ekeysiiyo waa mobileka ayaa rabaa inaan la ekeysiiyo. dabcan mobileka hadda ii muuqdo sawirka waan iska qariyay oo ishaas ayaan taabtay. isha haddii aan TikTok ka qaado ama isha aan taabto sawirka waa iga qarsoomaya. marka sawirka hoosa iska marinaya dabcan saan ugu wareerinba. kadibna rectangle-ka ayaa dhagsiinaya hal mar. edit shape baan leeyahay. kadibna waan ku buuxinayaa. sidoo kale wide ayaan dhamaystirayaa oo dhir ah ama joog. dabcan hadda waan ku dhamaystiray. marka kadib sawirkan hoos ayaan iska marinayaa. rectangle-ka yar ayaa ku laabanaya dib waxay ugu laabanayaa. qaybta y ayaan leeyahay. wax yar inaan ka yareeyaa rabaa. dabcan hadda waa isla egyihiin. geesaha kama muuqdo dabcan soo ujeedo. si normal aan aragnaa hadda. marka si aan iskula maskareeyo sawirkan waan soo taabanaya mar labaad. waxaan sameynayaa sawirka la ekeysiinaya. sawirka kor ii keen. kadibna sawirka xoogaa cabirkiisaan hoos u dhimayaa. dabcan markaan la ekeysiiye kana soo laabanaya marka isha soo saaraya waa riixaya. kadibna waxaan leeyahay calaamada dhexda ee kore qaybta kore ayaan ku dhufanayaa mask. hadda dabcan wixii kale waa laga qariyay. intaas ayaan isku wataa. marka kadib daqiiqadaha hadda waxay nagu egyihiin 2 daqiiqo. si aan u kordhinaa calaamadan hal mar dhagsiinaya telefonka oo kale. marka kadib geeskan ama filaarti yar ee dhanka aadaysa ayaan cabar riixaya. saacadii iyo waxyaabihii start timeline-ka ay soo saarayso. markaan waan bedelayaa ilaa waxaan ka dhigayaa 5 ilaa 5 daqiiqo meelahaasaan ka dhigayaa.
okay tan kale si ay ugu imaado hal mar aa ii select garaysanaya calaamadaas ayaan taabanayaa weli lama eko waxyar diyaar waa hadda way isla egyihiin labada dhinac marka waxaan rabaa inaan soo geliyo calaamada 1 minute marka ay dhaafo inay bartaas ku ekaataan sawirkii kale ayaan soo geshinayaa sawirkii baag ayaan soo gelinayaa sawirkan waxaa loo baahan yahay inuu ugu horeeyo marka 1 minute marka uu marayo waxaa rabaa waxaan oo dhan inay jarmaan waxaan leeyahay calaamadaas ayaan taabanayaa bartaasaa lagu jarayaa sidoo kale calaamadan ay taabanaya kanne bartaasaa lagu jaray 1 minute lama eko oo banaanka inoogu baxsan yahay umaleysaa sidoo kale kanna waa la ekeysiinayaa okay kanna bartaas ayaan ku jarayaa calaamada raalanoqo calaamadan geeska ay taabanaya isaga maadaama aan isku jarayo kanna waxaan umaleydaa inuu isagana la ekeen hadda way diyaarsan yihiin marka hadda waxaan sameynaya keyframe wax la ayaan ku sameynayaa oo inaan dhaqaajiyo sawirada marka si aan ugu sameeyo wareen waxaan taabanayaa sawirka baaga marka kadib waxaan leeyahay calaamada move and transform keyword keyframe aan ku xirnayaa sidoo kale bilowgiisan keyframe ku xirte ilaa 22 keyframe ku xirte keyframeka koowaad aan soo laabanayaa waxaan u wadayaa marka qaybta hoose waan wadayaa marka kadib hadda waxaa rabaa inaa cabirka saxo cabirka ayay kuu sheegaysa markaa saxdid haddii aan saan dhaho way qaloocantahay dabcan cabirka markaa meesha loo baahana aa geysid iyada istaagayso oo wax kuu soo saaraya calaamadaas markaa kadib waxaan ku lafinayaa calaamada qaybta keyframe ka hooseysa graph ayaa lahaa ama curve markaa kadib waxaan ku leeyahay calaamadan qaybtan ka dooranaya kadibna saas ayaan leeyahay copy ayaan leeyahay hadhow inoo baahdaa macquula okay haddii aan isla fiirno markaas uu kusoo baxo dabcan saad u jeedaan mid saan ayuu kusoo baxay markaa kadib keyframekan qaybta labadan isla hadaan u baahanahay telefonka dabcan waxaa leeyahay markaa group ayaan leeyahay groupin ayaa laga dhigay marka sawirka markuu soo baxo qaybtan waxaa rabaa iyadana inaa keyframe ka bilaabo ilaa iyo calaamada 15 kadib keyframekii koowaad aan soo laabanayaa qaybtan waxaa leeyahay scale ayaa rabaa inaan ku sameeya dabcan cafwan waa yareynaya marka waa yareynaya sawirka dabcan markuu soo galaya sidoo kale aan ku laabanaya carfiga waxaan ka leeyahay midkan waxaan ka dhigayaa saas ayaan ka dhigayaa okay si aad u jeedaa marka hadda waxaan isla sameynay animation yar oo telefonka ah sidoo kale waxaan ku sameyn doonaa calaamadan iidan iyo wad 2 second markuu marayo iidan waxaan ku sameynaynaa keyframe ilaa 2.5 ama 3 waxaan u wadeynaa markaa qaybtan dhanka midig dabcan waxaan siinaynaa carfigii waa isla arkayna marka si uu soo baxo
sidoo kale waxaan u baahannahay wax yar oo inaan siina taxi ah. Taxiga saan ugu soo darayna iyadana waa arki doonaa. Hore marka intaan kusoo darin qaybtan yaraa waxaa rabaa labada sawir markay soo galayaan taleefanka qaybtiisa dambe iyo qaybtiisa hore inay wax yar u dhexeeyo effect yar aan siiye. Marka waxaa leedahay sawirka ku dhufanaysaa qaybtan effectiisa kusii dhufanaysaa add effect aa leedahay. Marka waxaan u baahannahay qaybtan 3D-ga kadib waxaad dooranaysaa raster extrude mid la dhahayo. Marka waa kan midkan meesha yaala waa raster extrude standard ayaa leedahay. Dabcan free ma ahan waa application qeybaha lacagta leh. Marka si aad free ku heshid waa inaad daawata xayisiin ay ku leeyahay xayisiin aad daawanaysaa marka. Okay, waxaan soo gashnaa marka raster extrude-ka. Midkan wuxuu naga caawinayaa marka inaan sawir yani sawirkeen aan ka dhigno markii labada sawir ay kulmayaan ama ay kala bedelmayaan mid reality ah ama la fahmin. Warren hoose aad u wadaysaa marka san kugu soo baxo. Waxaa imaanaysaa qaybtan light source shading ay ku dhufaysaa. Hadda waxay ku taagan tahay point light flat ayaa ka dhigaysaa. Flat-ku waxaa waaye inuu wax ka qaado iftiinkaas iyo wax. Marka qaybtan sidoo kale waxaa imaanaysaa rotation markaad imaadid qaybtan y aad ku dhufanaysaa. Markaas yani qaybtaas waxaad siinaysaa keyframe tirada markay buuxsanaysaa waa sawirka koowaad meesha uu ku yahay keyframekiisa ayaad dhag siinaysaa ilaa keyframekan. Marka keyframekan waxaa ku dhufanaysaa y waxaa leedahay -160. dabcan -160 markaad dhahdid waxaa imaanaysaa depth. qaybtan depth ay ku qoran tahay waxaad ka dhigaysaa 1.6. saadida marka hadda wuxuu noqday mid yani macquul ah la jaan qaadi karo. Okay, wax yar inay qaldayaan u malaysaa. Rotationka ayaan ku laabanayaa. Okay, waxaa keena marka cabirkii ama rotationka sida ugu saxsaneed aan keena. Marka qaybtan waxaan ka dhigaynaa curve yar aan ku furaynaa. Rotation ku laabo curve imaw waxaa leedahay bus. waa diyaar marka kadib text ayaan soo gashanaynaa. textkeeni koowaad bartaan inuu kusoo galaan u baahannahay. text uu soo gelisid waxaad taabanaysaa calaamadan pluska kadibna qaybtan hoose ee ay ku qoran tahay text qaybtaas ay kusoo qoraysaa. Marka waxaan ku qoraynaa waafi sidoo kale farta waxaan siinaynaa qaybtan ayaa farta ka bedeli kartaa. farta waa weyneynayna horta. sidoo kale farta waxaan siinaynaa kalarka kalar gooni ama cagaar. kalarka ayrato waa siin kartaa. marka kalarkaasaan siinay anagoo ka qayb qaadanayna kalarka inay xoogo smart gareeyaan. sidoo kale farta qaybtan koowaad waxaan ka dhigaynaa keyframe ayaan siinaynaa. keyframe ilaa meesha keyframe ah. keyframeka koowaad waxaa rabaa inay qayb hoos ay farta kasoo gasho. sidoo kale waxaan leeyahay farta hoos ka mari. marka curve ayaan siinayaa farta. curviga aan soo koobiyeystay
sidoo kale text kale ayaan kusoo darayaa. Okay, farta iidan inaa weyneeyo ku qasbanahay. sidoo kale robot ayaan isticmaalayaa. weli wax yar inaa weyneeyo waaye. sidoo kale farta kalarka waxaan isticmaali doonaa black. markaa tig ayaan leeyahay. waxaan imaanayaa move and transform. dhankan ayuu jiidayaa marka. hal mar haddii aan ku laabto textiga edit aan leeyahay. waxaan dooranayaa inuu dhaxdi ama yacni uu ku qoro. markaan tig ayaan leeyahay. kadibna xer soo celinaya. okay, hadda farteena wayna soo muuqatay marka. sidoo kale waxaan u baahanay farta ku dukaamayso goob kasta iyo goor kasta inaan animation yar u sameyno. animationka u sameynayna effectigaan isticmaalayna effectigaan la yiraahdo taxi transform. isaga hataa xayisiin waaye inaad soo daawatid. marka gadaal ayaan ka daawan doonaa xayisiinta. keyframe aan ku xiranayaa. keyframeka koowaad waxaan leeyahay inay bartaas ka imaado. ama angalkaas dhan waan tirtirayaa. waxaan ka eginayaa keyframe aan ku xiranayaa. next keyframe waxaan leeyahay soo celinayaa. okay, sidoo kale curve ayaan siinayaa. hadda waxaan filayaa inay saldhan tahay. marka sida waxaan ku sameynay animation yar oo aan u talagalnay xayisiimaha. waadna kasii qurux badin kartaa hadii aad muuqaalkan ka hesho. waxaan rajeynaya inaad wax badan ka faa'iiday. sidoo kale ha ilaawin inaad telegramka haddii aad rabtid inaad xogtan isticmaashid aad kala soo degtid. muuqaalka haddaad ka heshay like sidoo kale ha ilaawin inaad kala sii gaarsiis. waa mahadsantihiin saaxiibayaal.